halgamaa Jenaraal Cabdullaahi Mukhtaar halkan ayaan ka calmanay annagoo niyad samaan badan u hayno mudane ku soo dhaw halkan Jenaraal بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد ولا ليال هذه بان إذا كان مثلنا يا كسوق بقلك مدشن صدق في علوس أبابلي رنتي قيرة يدرين كموجنايس وهرين هذا الكي رسمي حويا جود يو حويا رماد بدا يو جانكي يا وديري أنا أظن ما ليس كعيو كلي halkii dhan wadana iraado kooban baan rabaa kolka ugu horeysa si qalbi aan idin salaamay dhamaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad waxaan uga mahadcelinayaa hoggaanka abaabulka iyo madaxda hoggaanka shaqaysa hawlwadeenka iyo dhammaan xubnaha sida quruxda badan ee loo soo loogu joogo tubtii sax ahayd ee saldhiga loogu dhigayo bilowga ama ambaqaadka barnaamijka laga sheekeeyey ee u yaalla jabhadda walaalayaal marxalad cusub baan gallay marxaladda cusub ee gallay ee ah halgankeennii inuu ka wareegay habkii dagaalka hubaysan fokuska aan saaraynay oo aynu beegsannay oo go'aansannay inaan xaqeenna ku raadsanno wadda nabada arrintaas waa arrin ku cusub dadkeenna uguba weli qumaati qub inamaana oo dhan shaki badan baa jira dadka qaarkii qaar baa maamaadii soomaalida lahayd cawlay bambaad baratee buuri kuu dhaabi lahayd mooyi dad badan baa weli ku taagan oo maskaxdooda iyo bankii iyo dooni waa caadi wax dhiba maaha in la arko marka la go'aansada waxa cusub soomaalidu maamaha yaryar beleen waxay dhahaan waxa cusub caalamkaa jecel iyadoo taasi jirto haddana al-insaanu caduwwun limaa juhil dadku waxayna aqoonin waxay barteen bay iska jecel yihiin waxay barteen dadku إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وآيات القرآن وهي برتين بيدتكو كو حريه وعن لينا هاي جبهة أما هجانك جبهة كلكو قيمية وهايهن ظروفهن جدها حقال قتين مركو قيمية مسرح السياسي جيس كأفريقيا ودان جارهان waxa ka dhacay isbedelada cusub ee ka dhacay geeska Afrika iyo gaar ahaan dawladda Itoobiya federaalka iyo guud ahaan iyo dabaysha cusub ee isbedelka ee aan baqaaday tusaalana ay u tahay maanta inuu jigjiga joogna inaynu oo calaamadeena wadana inaynu muujinayno dareenkeena ka tashanayno aayaheena si xor ah fursadda markay bilantay شباب جوان ديرن بيجادي مانا قو ما ماينس هذا الجو أنت يار ولي شك وحالة وحالة ولا ريال فاهمة فرق وين بعود هيا مركز لو فكروا عاطفة هي واحد شعلان لهيد واشي thinking وحلي إذا واحد شعلان لهيد لو فكروا iyo waxa suurtagalka ee xigmadda ku dhisan geesinimo gaar ay rabtaa waxaan ergeydin ka nahay hawlwadeenka iyo madaxda iyo dhammaan xubnaha jawxo in wadada cusub ee madaxdu aragtay inay danteena ku beegsanayno koow inay si fiican u fahmaan allabo markay fahmaanna inayna bardegin ay si buuxda u hagar baxaan wadada ayada way dhib badan tahay tii hore mid fudud bay ahayd ogeedeen dhibkeedii marka lagu dheereeriyo wadada nabadda fura waxa uu ah fahamka xaqaa'iqa dalka ka jira runta iyo aqoon
hadduu awal hore ahaa geesinimo qori iyo xabad iyo waxaa geesinimada maanta ee cusub waxaa weeye kow in si fiican loo fahmo wax oo qalinko xigmad ku dhisan qalin xigmad ku dhisan inuu adeego maanta waxaan u baahnay aqoon baan u baahnay dhallinyarada wax ku baratay dalka gudihiisa ee xaqoodii aan herin si buuxda iyo kuwii qurbaha intay u firdhayn yimid ee maanta midoobaya intay integrations dhaba sameeyaan oo isdheexaan kala faa'iidaystaan inay gartaan dantooda taageeraan barnaamijyada ficil ku taageeraan barnaamijyada halganka loo dejiyey ee dhammaystiran oon is leenahay dadaal bini aadam kii u fiicnaa yay hoggaamintu fulisa waxay ku tashanna waa idinka waxaan doonaynaa waddadaa in la sameeyo siduu sheegay xogayaha arrimaha dibadda mudane axmed yaasiin haddaa carab ku dhuftay wuxuu yidhi jawxo iyadoo urur siyaasi ah oo hoggaaminaysa dalkan dhistay barlamaankii ugu horreeyey iyo instituushinada hadda magacaaban oo dhan saldhiggeedii dejisay xataa xisbiga aad maqasheen meelahan ka taliya uu ahaa xisbi ku qabsoomay oo qayb libaaxa ka ahayd jawxo ka horna dowladdaasi ay saa ku timidba instituushinada waxaa loo diiday jawxo inay waddadaas saxa ah ee ahaa inay dalka hanato dhisto u dhisto instituushinno dagaal baa lagu kallifay dagaalkii maahayn mid doorasho ku yimid ee mid qasab u ah maanta markay isbishay duruuftii isbeddeshay go'aanka ah in waddan nabada la qaato oo loo halgamo sidaa xogayaha guud hadda uu tibaaxay walaalayaal waxaan jecel lahay in intayna yaro shaki ku jirna aan isqarcinno oo aan u fidinno madallo fiican dadkeenna oo dhan xooggiisana inaan midayno dhammaan xoogga iyo xuduudda itaalka aan leenahay hadduu yahay itaalka loo yaqaano political power oo ah siyaasad iyo diblomaasiyad iyo waxa keenna ah fahamka iyo itaalkeenna mentaalka aba intaynu diyaarinno oon ismidowno in uu noqdo messagekeennu haddaan isku ognahay qowmiyad soomaaliyeed oo dan guud oo soomaaliyeed u marta waddan nabadeed oo lagu beegsanayo tala saarasho ilaah kadib lagu beegsanayo dadaal mintida oo isku tashi ku salaysan waddadaas inaynan marna ka shakin siduu xogayaha guud sheegay maamulka dalkan madaxda ka madaxweynaha iyo maamulka dhisan taageero buuxda oon shuruud lahayn baanu annagoo dibadda joogna go'aamin sidii baana u taageeraynaa waan taageeraynaa dhan walbaan ka taageeraynaa waayo waa maamulkanagii hadday wax si ka yihiin waan la talinaynaa hadday khaldamaan waan toosinayna aad u fiirsada marna ma dhacayso isku dhac soomaali dhexdeeda oo yaqas waxaana dhibayaa in dadkanaga sida gabdhihii iyo wiilashii halkan ka halgamay ay ku qeexeen suugaanta fiican ayna sheegi karin qabyaaladda ka hadlaysay qabyaaladda iyo baraarugan ayna faraysay waxaa weeye dadka soomaaliyeed ee gobolkeenna dalkeenna dega inay ku kala qaybiyaan qabiil iyo magac kuwaas waa cadowga diidan inaad xor noqotaan mana yeelin riya been ay shay isu sheegayaan riya beena yay riyoonayaan dalkan dadka soomaalida oo dhan baa leh nidaam cadaalad ku dhisan oo khayrkana lagu qaybsado si siman cadaalada soomaaliya wax ka hooseeyana u jirin weeye marka messagekeenna aan doonayno inaan isgaadhsiino kulligeen waxaa weeye qowmiyad soomaaliyeed oo dan qowmiya leh oo taana ku imanaysa midnimo iyo kow cadaalad gudaheenna iyo nabadgelyo waddan nabada sidaa weeye ayna caaradda u hayaan hoggaan adag oo mintida oo vishinka ama waddada loo maraya ay u caddahay yoolka uu tigsanayo himilada guudna ayna marna caad fuulayn saasaan idin leeyahay walaalayaal aad baan idin salaami waan yaro caadifaysanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu